caawa hawshu waa culus tahay marka aad fiiriso sida xaalka gobolka bariga dhexe uu yahay mujtaba qamani oo muddo dheer laga la'aa warbaahinta hadda qaar ka mid ah warbaahinta kala duwan ee dalka Iiraan ayaa ka soo bandhigaysa muuqaallo cusub oo la xiriira noloshiisa iyo waliba isagoo shaqadiisa wata ninkan markii la doortay kadib muuqaal ilbiriqsiyo socda ayaa la helay isagoo goob aad moodeen oo tacliin aqooneed ku bixinaya fadhiya laakiin isla markiiba waxa uu qaaday isbeddello waaweyn isagoo ciidamadii iyo waliba taliyaashii kala bedelay xilal amnina magacaabay tan waxa lagu tilmaamay xilligaas inay tahay dowlatus iyo diyaar garow dagaal iyo in mujtaba uu leeyahay dowladda Iiraan waa aarsanaysaa mana ka baqayso dhaqdhaqaaqida Mareykanka uu samaynayo haddaba fariinta soo muuqashadiisa caawa sidee loo muujinayaa faaqidaad gaar ah ayaynu ku samaynaynaa khiyaaray madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trumpna waxa uu isku diyaarinayaa dagaal cidiya ku dirir ah marka la fiiriyo xaalka hadda uu ku sugan yahay waddanka Iiraan dagaal la xiriira go'doomin dhuleed mid careed iyo mid badeed ayuu ku dhaqaaqayaa isagoo qaalibaaf uu leeyahay Trump innaga ayaa sanduleynayna oo maaha wixiisa wax weyn soo kordhin kara haddaba sidee loo macnaynayaa tillaabooyinkan cusub waan isla eegi doonaa afayeenka militariga ciidamada ilaalada kacaanka ee jamhuuriyadda islaamiga Iiraan caawa si adag ayay u hadleen waliba waxay tilmaameen in Mareykanka ay isaga filan yihiin marka la fiiriyo xaaladda hadda gobolkaasi uu sii marayo waa isku birtumasho cusub oo Mareykanka iyo dowladda Iiraan hadda u dhaxeeya jihada gobolka uu socda ee dagaalkaasi la xiriira ayaan caawa si gooniya muuqaalkan ugu faaqidaynaa khiyaarta inala socotay inta waxa raaci doona sirdoonka Israa'iil ayaa isku dhaxaya Xasan caawa iyagoo ka baqaya ciidamada waddanka Turkiga inay qaadaan weerar cusub oo ka dhici karaya aagga Golan iyo waliba xeebaha dhulka la haysta ee Falastiiniyiinta muxuu sheegay sargaal cusub oo caawa ka soo muuqday warbaahinta oo horey uga tirsanaa sirdoonka nidaamka Israa'iil maxayse yihiin walaaca ay muujinayaan nidaamkaasi si ka duwan dowladda Turkiga muuqaalka labaad ee maanta iyo taxliilinta wararka caalamka ee lafagurka diblomaasiyadda ayaan khiyaaray ku fiirinaynaa waa 23 bisha Agast sanadka 2026 soo dhawaada muuqaalkeena maantana su'aasha aynu isweydiinayna waxay tahay loolanka cusub ee ka dhex bilowda Iiraan iyo Mareykanka xagee saldhigan doona yaase guuleysan doona magacadii meesha aad joogto ku bilow kadibna aragtidaada qaybta hoose ee faallada ama comments-ka inoogu soo qor halmaamin muuqaalka like inaad saarto YouTube-ka subscribe aad saarto Facebook-gana aad follow soo tiraado soo dhawaada Somali Quran Online waa dugsiga ugu faca ballaaran ee habka online-ka ku bixiya barashada Quraanka Kariimka waana dugsiga ay wax ka bartaan yaryar waaweyn carruur iyo ciroole inka ugu waaweyn ee ardayga laga saacideeyo ama uu baranayo kamid ah barashada xifdiga Quraanka Kariimka barashada higaada afka Carabiga iyo barashada qaybta shariicada Islaamka ugu waaweyn yihiin barashada axaadiista nabigeena iyo waliba barashada caqiidada san ee Islaamka hadaba waalid bishan waxa la qaadanaya arday kooban ee ubadkaaga u ogolo oo gee dugsiga Somali Quran Online xilli gobolka bariga dhexe caawa xiisadiisa la leeyahay waa culus tahay isla markaana dhinacyada Tehran iyo Washington midba midka kale uu sameeyay sidii uu uga hortagi lahaa haddana mar kale warbaahinta Iiraan ayaa soo dusisay muuqaal mujtaba Khamenei la xiriira kaas oo ujeedadiisu ay tahay fariin cusub oo Trump loo dirayo oo la leeyahay ninkii Khamenei ahaa hawshiisa ayuu iska wataa si kastoo uu hanjabtay isaga marba sawirkiisa la soo bandhigayaa in muuqaalkiisa kadibna isbeddello waaweyn ay ku dhaqaaqaysaa Tehran warbaahinta Iiraan ayaa baahisay muuqaal cusub oo aan la shaacin waqtiga la duubay kaas oo lagu arkay hogaamiyaha sare ee Iiraan Mujtaba Khamenei isagoo miis hor fadhiya oo eegaya baaliri dokumentiyo isla markaana u muuqda in uu qof la hadlayo muuqaalka ayaa markii ugu horeysay waxa baahisay warbaahinta Iiraan ee la yiraahdo Rogna waxaana warbaahinta kale ay ku tilmaameen in uu u baahan yahay muuqaalkan kayd horey loo duubay balse marka la fiiriyo dhaqdhaqaaqa sirdoonka iyo waliba abaabulka ra'yiga bulshada ayaa lagu tilmaamayaa muuqaalkan inuu noqday mid hadalhayn weyn abuuraya mujtaba Khamenei ayaa si joogto ah aan uga soo muuqan fagaaraha tan iyo markii uu xilka hogaamiyaha sare kala wareegay aabihii oo dhintay horaantii
bishii Maarso 28 Febraayo kadib markii ay duqeeyeen goobtii uu ku shaqeynaya ciidamada isgarabsanaya Mareykanka iyo kuwa Iran aan iraade Israel oo doonaya nidaamka kacaanka Islaamiga ee Iran in ay majaraxaabiyaan. muuqaalkan cusub ayaa ku soo beegmay iyadoo horaantii bishan warbaahinta rasmiga ee Iran ay baahisay muuqaal kale oo aan taariikhdiisa la shaacin kaas oo mujtaba la arkay isagoo cashir diini ah u jeedinaya koox rag ah. wararka ayaa tilmaamay in muuqaalkaasi laga yaabo in la duubay ka hor inta aanu dagaalku qarxin baa layidhi sida dooda warbaahinta reer galbeedku ay u dhigayaan. maqnaashaha joogtada ah ee mujtaba Khamenei ee munaasabada dadweynaha ayaa dhaliyay su'aalo iyo saadaal ku saabsan xaaladiisa caafimaad iyo jireed awgeed. warar hore ayaa sheegayay in laga yaabo inuu dhaawac ka soo gaaray weeraradii Mareykanka iyo markii la dilay aabihii iyadoo aan si madax bannaan arrintaasi loo xaqiijin. Iran ayaa dhankeeda sheegtay in sababta ugu weyn ee mujtaba uu si joogto ah ugu soo muuqan uu yahay arrimo amni oo isaga xaaladiisa la ilaalinayo. muuqaalka cusub oo aan la ogeyn goorta iyo goobta saxda ah ee lagu duubay sidaas darteed looma qaadan karo baa layidhi cadeymo rasmi ah inkasta oo laga baqayo in ay tahay dhoolato siyaasadeed oo weyn oo dowladdaasi Iran ay soo bandhigayso xilli xaaladda gobolku ay iminka taagan tahay meel kulul. madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump ayaa isna ku jira dagaal ciidan ku diriiris ah kadib markii uu ku dhaqaaqay tallaabooyin suuragal ah inuu sameeyo saacadaha soo socda oo la xiriira in dalka Iran xitaa uu ku soo rogo go'doomin dhinaca dhulka iyo cirka ah iyadoo horey go'doomintii badda ay u taagnayd. hase haatee dowladda Iran ayaa ku tilmaantay taasi inay tahay dhagar uu ku fashilmi doono sida ay doodooda caawa u dhigayaan. madaxweynaha dowladda federaalka ee Mareykanka Donald Trump ayaa ballan qaaday in Washington ay sii adkeynayso cunaqabataynta dhaqaale ee ka dhanka Iran xilli xogayaha maaliyadda Mareykanka Scott Bessent uu sheegay in maamulka Trump uu qorsheynayo tallaabooyin uu ku tilmaamay kuwa aan caadi ahayn kuwaas oo la filayo in la dhaqangeliyo toddobaadyada soo socda. tallaabooyinkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo aqalka cad uu tan iyo markii uu dagaalku qarxay bishii February uu si weyn u soo kordhinayo cunaqabataynta lagu soo rogayo waxyaha gaadiidka badda tamarta iyo maaliyadda Iran iyadoo sidoo kale Washington ay qaaday tallaabooyin lagu xanibayo isa socodka maraakiibta lala xiriiriyo waddanka Iran. wargeyska caanka ee ka soo baxa nidaamka Israel ee bariga dhexe Jerusalem Post ayaa soo bandhigay dhowr ikhtiyaar uu Trump oo adeegsan kara baa layidhi si cadaadis dhaqaale oo majaraxaabiya dowladda Iran loogu sameeyo. kan koowaad waxa uu yiri in la bartilmaameysado kaabayaasha tamarta iyo shidaalka ee waddanka Iran ee Shiinaha gacan saarka la leh ee loo yaqaan T-bots. mid ka mid ah tallaabooyinka Washington ay ka fiirsan karayso ayaa ah cunaqabatayn lagu soo rogo warshadaha shidaalka ee gaarka loo leeyahay ee Shiinaha kuwaasi oo loo yaqaan T-bots. warshadahan ayaa waxa ay leeyihiin qayb weyn oo ka mid ah awoodda sifaynta shidaalka ee Shiinaha halka dalalkaasi uu yahay mid ka mid ah iibsadaha ugu weyn ee shidaalka iyo saliidda waddanka Iran halkaas oo loo arka Iran inay tahay meesha ay ka dhiman weyso cunaqabataynta Mareykankana ay ka shaqeyn kari laadahay sida ay doodooda u dhigayaan warbaahinta reer galbeedka. wargeyska Jerusalem Post waxa uu leeyahay in ka badan 80% saliidda Iran ayaa lagu dhoofiyaa badda waxaana qaata Shiinaha iyadoo warshadaha madaxa bannaan ay qayb ka yihiin ganacsigan muhiimka ah. taasi waxa ay ka dhigaysaa baa layidhi shirkadahaasi bartilmaameedka ugu muhiimsan ee cunaqabataynta dowladda Mareykanku ay sameynayso iyo ikhtiyaarka labaad oo ah in la beegsado shakhsiyaad iyo shabakadaha Iran si dhaqaalaha waddankaasi asalka loogu dhigo. ikhtiyaarka labaad ee ah Mareykanka inuu sii wado ayaa ah bartilmaameedsiga shakhsiyaadka iyo hay'adaha Iran iyadoo sidoo kale kooxo iyo shirkado ku yaala Shiinaha iyo dalalka Khaliijka kuwaas oo Washington ay ku eedeysay in Iran ay ka caawinayaan inay ka baxsato cunaqabataynta baa layidhi in la kordhiyo cadaadiska dhinaca shidaalka ee waddanka Iran saaran. qorshaha ayaa muujinaya in maamulka Trump uu isku dayayo inuu cadaadiska Iran ka dhigo mid ku fidsan shidaalka kaydadka bangiyada maraakiibta iyo ganacsiga caalamiga ah ee la xiriira Tehran. haddii Washington ay dhab ahaantii beegsato warshadaha shidaalka iyo bangiyada
shiinaha tallaabadaasi waxay kordhin kartaa xiisadda Mareykanka iyo shiinaha iyadoo markaasi cadaadiska uu ka tallaabaya dhinaca Iiraan. dhinaca kale Tehran ayaa muddo dheer ku tiirsanayd shabakado ganacsi iyo maaliyadeed oo ku yaala dalal kala duwan oo ay uga gudubto cunaqabataynta Mareykanka. sidaasi darteed xiisadda caawa waa ay ka duwan tahay sidii maalmihii la soo dhaafay. afayeenka ciidamada ilaalada kacaanka ee Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iiraan waxa uu leeyahay waxaynu leenahay qorshayaal aynu kaga jawaabno tallaabooyin kasta oo gardarro ah oo Washington ay dhankeena u soo qaado. waa luuqad adag oo dagaal oo caawa mar kale ay ku hadlayso dowladda Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan. مسؤول سراء وقابلسان أمنية قرنكا إيا وليبا لا عيارتنكا مريكنكا إيه سياسة قبلكا إيا شيغي إنتاران أي ديارو تايني كجوابتو تلابوين أي واشنطن كقاضي سواتنكاسي إيران. حقيقة قولها سراء أمنية قرنكا إيران محسن رضا أيا شيغي إن إيران أي برتلمامي صدون تبالي ردنا حد دلالك قبلكا haddii ay ku biiraan waxaa Tehran ay ku tilmaantay dagaalka dhaqaale ee Mareykanka uu ku hayo wadankaasi. Rida ayaa ugu baaqay dhammaan dalalka dariska la ah Iiraan iyo wadamada kale ee caalamka in aysan ku biirin tallaabooyinka adyadka ee gardarrada ah ee Mareykanka uu doonayo wadankaasi in uu ku saameeyo. waxa uu sheegay haddii dalalka gobolka ay Mareykanka kala shaqeeyaan cadaadiska dhaqaale Iiraan ay u aqoonsan doonto kuwa cadowa sidaas darteed ay noqonayaan bartilmaameed sharci ah oo ciidamada ilaalada kacaanku ay weerarayaan. Iiraan oo hanjabtay inay xanibi doonto shidaalka qaliishka haddii ay arrimahani sii kordhaan. Rida waxa uu sidoo kale ku hanjabay in ay xiri doonaan Iiraan gacanka Carabta isla markaana ay ku xiran tahay marinka Hormuz xaaladda hadda taagan ee Washington. waxa uu sheegay in xaalku aysan Iiraan u ogolaan doonin hal dhibic oo shidaal ah in laga dhoofiyo gobolka iyadoo digniinta ay ku wajahan tahay wadamada muhiimka waa shidaalka ee laga dhoofiyo ee qaliishka. Rida ayaa Trump ku eedeeyay siyaasado halis ah iyo dab uu ku ciyaarayo in uusan hadhow baqtin karin. mas'uulkan Iiraaniga ayaa Mareykanka gaar ahaan madaxweyne Trump ku eedeeyay inuu u dhaqmayo siyaasad aan laga fiirsan isagoo sheegay tallaabooyinka Washington inay yihiin kuwa qariska tuurnimo ah. digniinahan iska soo dababaxaya ayaa caawa halis gelinaya amniga gobolka Bariga Dhexe waxaana laga baqayaa xiisadda in ay kororto oo ay gaarto meel aan laga qaban karin mustaqbalka sida hadalka soo baxayaba uu tilmaamayo. ugu dambeyntiina sirdoonka nidaamka Israel ayaa dareemaya isku dhaxyaac weyn caawa iyagoo difaac suuragal ah ay tahay inay ka xirtaan xeebaha nidaamkaasi iyo aagga buuraha Golan oo ay ka haystaan dowladda Syria xilli dhaqdhaqaaq weyn ay u dhaxaya ciidamada Ankara iyo kuwa Israa'iiliyiinta maalmihii ugu dambeeyay laga arkayo gobolkaasi gaar ahaan aagga wadanka Syria. مسؤول سراء سردونك إسرائيل ayaa ka digay in Israel ay dhawaan wajahi karayso iskoorimaad military oo toos ah oo ay la galaan ciidamada wadanka Turkiga gaar ahaan buuraleyda Golan iyo meelaha ka baxsan xeebaha magaalada la yiraahdo Qaysariya haddii Tel Aviv aysan si cad u dejin qad cas oo kala xadidaya dhaqdhaqaaqa Ankara ay ka sameynayso halkaasi. digniintan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo dib loo xasuusanayo warbixintii guddiga Nagel ee sanadkii 2025 qiimeyn ay ku sameeyeen miisaaniyadda iyo siyaasadda amniga Israel isla markaana ka digtay in Israel ay u baahan tahay inay isu diyaariso suurtagalnimada iskoorimaad toos ah oo ay la yeeshaan Turkiga iyo ciidamada Syria ee xulifada ah ee Ankara la soconaya. warbixinta ayaa hore u sheegtay in Qatar ka soo baxaysa Syria ay mustaqbalka bedeli karayso xaaladda jiritaanka nidaamka Israa'iiliyiinta. weerarkii saldhigga Idlib ku yaalay ee waqooyi galbeed Syria waxa uu abuuray marxalad xasaasi ah oo mustaqbalka gobolka Bariga Dhexe sababaysa baaliri ku jeeditaan Turkiga uu dagaalku gali karayo. digniinta ayaa sidoo kale lala xiriirinaya duqeyn cirka ah oo Israel dhawaan ka fulisay saldhigga diyaaradaha Abu ad-Dahur oo ku yaala meel ku dhow Idlib oo waqooyiga Syria sida ay sheegeen ilaa la soo xigtay warbaahinta Israel. Turkiga ayaa halkaasi ka waday dhismaha ama dejinta nidaam radar oo ka tirsan difaaca cirka oo awood u yeelan kara
saameynta howlgallada wadanka Syria. falanqeeyaasha ayaa aaminsan in duqeyntu ay ahayd fariin toos ah oo loo diray madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo hogaamiyaha Suuriya Ahmed al-Shara oo waayadii ugu dambeysay siyaasadoodu ay ahayd kuwa isku cindan. xiisada Ankara iyo Tel Aviv ayaa mar kale cirka isku shareeraysa iyadoo walaaca uu hadda aad u sii kordhayo. xiisada u dhaxaysa Turkiga iyo Israa'iil ayaa si weyn u kordhay iyadoo labada dal ay isku khilaafsan yihiin mustaqbalka Syria iyo qaabka awoodda militariga wadankaasi laga dhigayo. qaar ka mid ah falanqeeyaasha Israa'iil ayaa aaminsan joogitaanka militariga ee Turkiga ee Syria in mustaqbalka si toos ah uu carqaladeyn karo xorriyadda Israa'iil ay la leedahay hawada waqooyiga iyo awoodeeda ay ku fuliso weerar militari. qoraaga la yiraahdo David Weinberg ayaa dhankiisa dhaliil adag u jeediyay Erdogan isagoo ku eedeeyay in uu leeyahay aragti colaadeed oo ku wajahan Israa'iil iyo shacabkeeda, isla markaana uu doonayo buu yiri inuu hogaamiyo isbahaysi Islaami ah oo aad u ballaaran. si kastaba eedaynta noocan ah waa aragti siyaasadeed uu qorshuhu qabo, waana xaqiiq madax bannaan oo la xaqiijiyo buu yiri. haddii xiisada u dhaxaysa Ankara iyo Tel Aviv ay sii kororto, Suuriya ayaa noqon karaysa goobta ugu weyn oo labada dhinac ay ku loolamaan, gaar ahaan aagga Golan iyo waqooyiga Syria iyo hawada ku xeeran aaggaasi. ikhtiyaarta inala socotay habeen wanaagsan ayaan idin leenahay haddii aad halkan nala soo gaarteenba. sidaad la socoteen dhaqdhaqaaqa gobolka bariga dhexe caawa xakamaha ayuu jabsaday. Israa'iil iyo Turkidu waa isku baxsanayaan, Iiraanna waa goodinaysa, Trumpna waxa uu galay dagaal cadiyo ku dirir ah. haddaba mustaqbalka gobolkan xagee u socdaa? magacaada iyo meesha aad joogto ku bilow, aragtidaadana qaybta hoose ee faallada noogu qor. hilmaamin YouTube iyo Facebook gaba inaad ku soo biirto oo subscribe iyo follow tiraado. Ama ahsantiin.